English mahmadaas intaana guda galin please waxaa ka codsanaya inaad followda soo badisaan casharka la wadaagta asxaabtiina youtube-kayga aad soo subscribe garaysaan oo fooqataan dadka sharafta leh dee waxaa lagu yaqaanay in ay dhiirigelin sameeyaan anigana ay dhiirigelisaan adinkana wax iga faa'iidaan alright so casharka wuxuu ku saabsan yahay proverb la yidhaahdo an empty vessel makes the most noise okay an empty vessel makes the most noise. هرم هو مقشي مساعدة مقلسة. An empty vessel makes the most noise. هرم هو مقش أرضي مساعدة كوريسو. أدو مركا محالة ودا مهمهدان usually مهمهيد مركي لشيء جايو معنا جود أي ليهن معنا قار وحواي معنا وضع قطة دريهن. so مركا أنا سي جود أيار وأنا أوفير ارتبطة وسقاطنا ماشي كجرتا. Generally هدا فير نحاول a person who talks or who talk too much usually does very little. horta maamaada waxay ku saabsan tahay dadka hadalka badan oo wax ii sheeg aanan waxqabadkoodana yaryahay dad hadal badan oo waxqabadkooda yaryahay ayaa looga hadlaya si guud marka aan si gaara u micneyno oo isku dayno xataa an empty vessel waxaa laga wadaa weel maran makes the most noise weelkaasi makes wuxuu sameeyaa the most noise qaylo fara badan buu sameeyaa weelka markuu uu eber yahay dee shanqartiisu ay dheertahay laakiin markuu buuxo shanqartiisu way yartahay oo wax shanqara ma laha so that is why loo soo qaato lir dadka hadalka badan oo buuqa badan oo faanka badan oo istustuska badan oo meel walba inay ka muuqdaan badan waxba kuma jiraan waa an empty vessel makes the most noise haddaba hadhowdi haddaa aragto qof war badan oo hadal badan oo been badan oo faan badan waxaa kugu soo dhacayo an empty vessel makes the most noise aa kugu soo dhacayso haddaba english haddaa ku sharaxna waxaa yiri people who know little dadka garanaya wax yar or have no real substance substance waxaa laga wadaa aqoonta waa wadarta guud oo qofka uu u baahan yahay inuu yeesho sida aqoonta xigmadda caqliga kartida ayaa la yidhahdaa substance markii laga hadlayo sidoo kale knowledge halkaan soo galaysaa so people who know little dadka wax yar yaqaano ama garanayo wax yar or have no real substance oonan lahayn caqli iyo aqoon iyo xigmad lahayn talk the most ayaga ayaa ugu hadal badan or make unnecessary noise ama waxay sameeyaan buuq iyo qaylo aan loo baahneen malay fahmaya okay halkaan waxaan kusoo sheegay waxaan a person who talk too much qofka zaidka u hadla usually does very little caadiyan wuxuu sameeyaa wax qabad yar because hadalkiiba energy dhan ka cunaya haddaba dad maxaa kasoo horjeeda dad aamusan dadkaas maxay yihiin waa dad knowledgeable oo aad u cilmi badan oo aqoon badan dad wise waxaa waye xikmadda waaye qofka markuu aqoon leeyahay xikmadiisana way ziyaadaa sidoo kalena waxay noqdaan dadkaas dad mature